بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka barano weydiinta ah what is a mortgage loan? Mortgage loan waa deyn loogu talagalay macaamiisha inay ku gataan ama ku hagaajiyaan guri ama dhul. Haddaba guriga ama dhulka waxaa loo adeegsadaa rahan ahaan oo waxaa dib loo gadayaa haddii uu macmiilku bixin waayo deynta. Xog dheeraada oo ku saabsan rahanta iyo sugnaanta deynta ka dhigaysa lifaaqa hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay. haddaba si macmiilka deynta loo siiyo waxaa laga rabaa in uu buuxiyo shuruudo dhowr ah sida marka la qiimeynayo waa inay soo baxdaa inuu ehel u yahay deyn qaadasho, sidoo kale inuu bixin karo lacag horumaraysa ugu yaraan 20% deynta uu rabo inta ay leegta, iyo inuu dakhli soo galo oo awood u siinayo inuu deynta iyo dulsaarkeedaba ku bixin karo inta lagu guda jiro muddada heshiiska. muddada bixinta deynta guryaha iyo dhulka waxa ay badi u dhaxaysaa 15 ilaa 30 sano. ogow dulsaarka waxa uu noqon karaa mid go'an ama mid isbedelaya, kana dhigayso lifaaqa hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay fixed and variable interest rate. sidoo kalena ogow bangiga bixinaya deynta waxa uu guriga ku leeyahay xaq inta macmiilka deynta oo dhan uu ka bixinayo, oo haddii macmiilku uu bixin waayo deynta bangiga waxa uu bangiga xaq u siinayaa inuu gurigaas gadi karo si uu uga soo kabsado ama uu uga helo lacagta ku harsan macmiilka. xog dheeraada oo ku saabsan deynta bangiyada, bixinta horumariska iyo qiimeynta deynta fadlan ka dhigaysa lifaaqa hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay. mahadsanidin waa inoo markale haddii rabbi idmo.